anigoo Saciid Maxamuud Gahayr aadan Xuseen Xaashi wuxuu ila soo hadlay anigoo Boorama jooga markaa wuxuu maxkamadda ciidamada qaranka iyo xeer ilaalinta u gudbinayay cabasho ka dhan ah jirdil iyo garaacitaan ay ku sameeyeen ciidanka sirdoonka Somaliland waraaqihii uu dacwadiisa ku gudbinayay aadan Xuseen Xaashi intii aan la xidhin waa kuwaas ninkii dhibanaha ahaa ee cabanayay ayaa la leeyahay maxaad noo sheegaysaa waxaanu doonaan kugu samaynaa beerkaanu ka laadaynaa waxaanu nahay inamadii madaxweynaha wax alaala waxaa naga qaadi kartaana ma jirto iyadoo la xidhan yahay shaadhkii madaxweynaha halkan imika la geeyey aadan Xuseen Xaashi malaha saldhig baad u aragtaan intiinan midkiinna muu tegin waxaa la yidhaahdaa counter terrorism unit xarunta la dagaalanka argagixisada ayaa la yidhahdaa ama ka hortagga argagixisada ma aha meel loogu talagalay qof shacab ah iyo qof shaqaale ah waa meel loogu talagalay dadka hubaysan ee falalka amni darrada ah gacanta kula jira cid kasta ay yihiinba waa meel aan la ogolayn in dadka la booqdo intii la soo wareejiyey hal qof baa arkay aadan Xuseen Xaashi oo gabadhiisa iyaduna baryootan iyo tuxun iyo tegi maayo ayay ku aragtay aadan waxaana loo sheegay in gacantu imika ay jaban tahay waxaana loo sheegaya inay nabarro ku yaalaan isla markaana aan dhakhtar la geynin 24 cisho aan ku jiray halkaas waxa ii yimid dhowr qof oo hooyadii iyo ka mid yihiinoo baryootan iyo suxun iyo tuxun ku soo galay waxaanu leenahay horta aadan ha la geeyey haddii uu xidhnaanayo xarumaha loogu talagalay dadka shacabka in lagu xidho ee saldhigyada caadiga ama qaybaha kale ee CDA ilaa haddana wax dacwada oo rasmi ah oo laga soo gudbiyey ma jirto ta kale waxa aan sharci noqonayn marnaba in qof shacab ah la saaro maxkamad ciidan waxaan leenahay haddii aadankiis loo haysto aan ahayn maxaad noo sheegaysaa aan ahayn aan ku garaacnay afkaaga hayso aan ka ahayn sida wasiir ku-xigeenka amnigu dee dadka ku yidhi ee uu yidhi maxaa saxaafadda idiin geeyey ordo madaxweynaha iyo inankiisa imika raaligeli soo siiya buu yidhi wasiir ku-xigeenka amnigu wuxuu yidhi imika soo qoran oo taayaha inuu ninkaas waanu sii daynaynaye arrimahaas faraha kala baxo waxaanu leenahay wax alaala wuxuu faraha kala baxaya ma jiro nootaayo ay qorayaana ma jiraan sharcigii wuu cabanayay markii hore ayuu cabanaya haddii aad innaba wax ku haysaan aadan waxaan leenahay kiiskiis soo diyaariyo maxkamadda horkeena aad iyo aad baan uga xunnahay tacadiga gaadhay ninkaas muwaadinka ah ee xoogsatada ah ee aan siyaasad iyo saxaafad iyo wax dadkaga hor yimaadaanba ku lug lahayn